waxaa wax aad iyo aad loogu farxaa runtii in dalka iyo dadka Soomaaliyeedba ay sagootinayaan casrigii musuqa siyaasiga ahaa, casrigii sayladaha, casrigii corruptionka inay sagootinayaan ay xuquuqdana dib ugu soo celinayaan shacabka. rabitaanka shacabkana inaan xaqiijino waa waxa aan ku matalno oo aan halkan u joogno. haddii aad duqsiga ama taxsiga ku qanciso in qashinka ama in ubaxa uu ka caraf badan yahay, ka udgoon badan yahay qashinka, waad awoodaa inaad siyaasiga faasidka ku qanciso in qiyamka iyo valuega iyo akhlaaqda ay ka qiimo badan tahay maalka. dhibka ugu badan oo na haysta waxaa weeyaan waxaan ka shaqaynaynaa waxaanan fahansanay dastuur isku qariban iyo nidaam federalism isdhexyaacsan oo wixii dastuurka ku qornaa wax ka duwan oo qaab siyaasadeed lagu xaliyey ayaan horta ka shaqaynaynaa. markaasaa waxaan ugu dhacay tiih. waxaan ka hadlaynaa canab ama cinib, waxaad tidhaahdaba. dadka qaarkoodana waxay ka doodayaan khamrada oo waxaan leenahay war canabka si sax ah aan u isticmaalno, markaasay khamrada nagala doodayaan oo micnaheedu yahay baarlamaankii ama golihii shacabka oo ahaa sultadii ugu saraysay oo sharci dejin ayaa wuxuu leeyahay war go-aan u gaar ummadda aada matasho. markaasaa dadka qaarkiis waxay la soo istaagayaan go-aanka hana loo gaaro, annagu ma gaari karne. waa wax runtii ayaan dara ah oo waxa weeyaan waxay u baahan yihiin in aad loogu celceliyo si ay u fahmaan awoodda ay leeyihiin dadkaas iyaga ah. nidaamka horta federalismka aan haysano waa nidaam qabali ah, federaal qabiilaysan weeyaan. sababtaan la idin sheegaya waana perception la qaatay, ma aha wax dastuur ku qoran Soomaaliyeed ma aha. yaa yidhi maamul goboleed hebel doorashada qofka madaxweynaha ku soo baxayo madaxweynaha ku-xigeenka ku soo baxayo waaba lasii og yahay beesha uu ka imaanayo. dadka kale ah xuquuqdooda hirshabeelle tag, guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaankooda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda beesha ay ka imaanayaan waa la og yahay. galmudug sidaas oo kale, jubbaland sidaas oo kale, puntland sidaas oo kale. maxay tahay marka xaqa aad ka hadlaysaan iyo federaalka aad ka hadlaysaan iyo xuquuqda shacabka aad ka hadlaysaan iyo xagee taala? maxaa u diiday muwaadinkan kale inuu xaq u yeesho waxay xaqa u leeyihiin kuwa kale? federalismkaas noocaas ah ayaa wuxuuna gaarsiiyey in la kala garan waayo waxa la yidhaahdo beesha koowaad iyo beesha labaad iyo beesha saddexaad iyo beesha afraad ee la og yahay bas beesha shanaad waxay. horta nidaamkaas qabaliga ilaa laga baxaayo buuqa wuu taagnaanayaa. tusaale markaan usoo qaadano waxyaabaha politicalka ama siyaasadda buuqeeda dhalin kara waxay tahay mudug oo kale laba maamul ay ku kala jirtaa. dadkooda iraadadooda ama rabitaanka dadka mudug miyaan qadarinaa mise waxaan qadarinaa niman siyaasiyiin ah rabitaankoodan qadarinaa? ilaan federaalka waxaa ku qoran dastuurka waxaa ku qoran laba gobol iyo ka badan ayaa maamul goboleed noqon kara. tii ma dhici. sool iyo sanaag sidaas oo kale ma dadkeedan rabitaankooda tixgelinaa mise waxaan tixgelinaa siyaasi? marka laga hadlaayo kuraasta deegaameentooda, haddii la yidhaahdo maanta walaalaha somalilan ka soo jeeda halkaana muqdisho lagu qabanaya, abidkoodama muqdisho waxa waaye lagu qaban doonaa. kuwa la leeyahay degmooyinka ilaaba ilaa hala geeyo la leeyahay, degmooyinka hadda lama geen karo. waxaan loo geen karin waxaa weeyaan waxaan maraynaa nidaamkeenan qabaliga ayaa wuxuu noo noqday ilaah aan caabudno. qabyaaladu waa ilaah aad caabudaan ilaahay sokadiisa, waayo wax kale oo aad haddaad raali ka ahaan laheedeen waxa weeyaan qabyaaladan waxa waa iska dhaafi laheedeen. sababtoo ah marxaladaasi marka waxay u baahan tahay si gradually ah ama tadriiji ah in looga baxo. waa wax idinkugu adag inaad ka baxdaan istakfirullah dheh ama subxaan allah dheh, laakiin xaqiiqda waa taas. caabuditaankana waxaa la yidhaahdaa waxa aadan ka foqi karin oo waxa weeyaan aad xagjir ku tahay oo aad aaminsan tahay.
marka nidaamkan qabaliga ama doorashada hadda la joogo ma ahan in hal mar waxa weeyaan laga guuriyo deegaan ilaa iyo tuula la aadayo ama la aadi karo meesha ma taalo waxaa la taagan yahay oo laga soo gudbay laa taqrabu salaata wa antum sukaara idinkoo qamre cabsan salaada ha u dhowaanina waxaa loo soo gudbay muxuu ahaa wayasaluunaka can alkhamri walmaysir qul fiihima ismun kabiirun oo qamrada waxa weeyaan keeda yar iyo keeda badan iyo dembigeeda iyo manfacadeeda dembigeeda badan nafcigeeda yar haddeer waxa weeyaan waxaa la taagan yahay khamrada sideedaba waa xaaraan oo ka fogaada oo waxaan sagootinaynaa qabyaaladii ayaan sagootinaynaa aniga mar kasta waxaan aaminsanahay oo mabda'na iga waana ka xumahay runtii golahan sida sanaadiida quraysh oo kale inuu isku bedelo oo qabyaalad iyo waxaan macno lahayn waxa waaye lagu qanciyo lana fahmi laayahay intaan xorriyadda qaadanay ilaa iyo haddana waxa weeye inaan ku dhex jirno war dadka halkaas soo istaagay si cilmiyaysan ha u hadleen waxa waaqica ee saxda ana ha ka hadleen yaysan u dayeelin siyaasi mucayan aysan u dayeelin ha u daneeyaano shacabka ha u daneeyaano oo ha ka hadlaano waxa suuragalka ah iyo waxa suuragali karin haddii la qaadan lahaa sharcigii hore ee single constituency-ga waxay la tahay buuqan waxa weeyaan inuusan jiro lahayn cid kastana waxa weeyaan ay qanacsanaan lahayd wixii anagaa baahinay amniyanan waxa way u baahinay waxaan u baahinay siyaasiyan u baahinay markaasaa waxa weeyaan waxyaabihii dhan ee isku qasmeen marka waxaan aaminsanahay kuraasta deegaameynta haddeer looma gudbi karo qaab degmooyin looma gudbi karo laakiin waa sharci sharcigana waxa waaye sidiisaba waa la develop gareeyaa meeshiisa ma taagnaado haddii daraas lagu qabanayay caasimadaha maamul goboleedyada maanta waxaan taagannahay in gobollada caasimadahooda lagu qabto beritana waa ka gudbaynaa markay degme iyo tuulo tagto markaasaa la dhihi karaa kursigaada meel uma wareejin kartid haddeer ani beledweynaan ka soo jeedaa laakiin hiiraanaa ku qoran hiiraan hadday ku qoran tahay macnaha meel kastoo hiiraan aha lagu qaban karaa ama ha lagu qoro caasimadaha gobolladaa lagu qabanayaa qofaa waxaa jiro hiiraan feerfeer dego ama dego jalalaqsi dego ama buulo burda dego shacabkaas buulo burda miyaa dooranaya qofka waxa weeyaan ee beledweyne hadda joogo ma dooran karo haddeer awooddaasna lama haayo nimanka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qarankana kuma soo talagelin waxay ku soo talagaleen waxyaabaha suuragalka hadda la qaadan karo waaqiciyadana diinta ay ku jirtaa waaqaca la qaato guddigana yaa lala tegin guddi laaluush ku shaqeeyo kale yaan laga dhigin dadkaan walaalaheena halkaanay waxa waaye ka fataalaa